akhyaarta ku jira bootiyada ee trading-ka sameeya mid iska hubiya bootku ma isagaa kugu shaqaynaya automatically wax aadan dooran mise adigaa doortay coinka aad ku shaqaysanaysid laanna waxaa muhiim inaan ogaano coinkan uu bootku ku shaqaynayo ma xaraamba mise waa xalaal marka ugu horeysa ku saliya nabigeena xabiibkeena عليه أفضل الصلاة والسلام سيدو إلهي سبحانه وتعالى هو أمري يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنديه أقدم بيي وحصوب بحي وحلا يراهدو تريدينج بوتس ولو عن كان ليا تريدينج بوتس يدا لو استعماله كريبتو كارنسي كمباني بدن بفرتي تريدينج بوت اكسشينجو كل دون ويلين تريدينج بوت كمباني يدا فرتي يجا العقب بالقاطع أو إنت بحسها العق سنة كيبا أو معناها اشتراك في خدمة يعني كو اكسجيدون وافريوية لكن لا صعدة بود كان يبقى وح كمبيوترايزد او لغا شقيي او وحو استعماليا ادي نقطه تكنيكال انديكيتورز يو الجوريثم يو هيستوريكال داتا waxyaalo badan bay isku xirayaan si looga gaaro tradingka waxa uu yaqaaneen trading decision ama go'aan meesha uu ka qaadanayo coinka iyo meesha uu kaga baxayo waana xisaabaad dheer weeye oo ay in badan ka shaqeynayaan oo system kale ku shaqeynayo marketka isha ku hayaan tradeada ay arkaan inay sax tahay inay meel fiican u taagan tahay ka qaadanayaan meel fiicanna way kaga baxayaan marka طريقة ku shaqeeyaan laakiin dadkeen wax weeye dhibtayna sabab maxay idin Soomaaliyeed boodkii way iska galiyaan tireetay dalaq buu qofkii ornaya boodka lacag badan buu gelinayaa inuu ku khasaaraya marka boodka inta aadan gelin oo lacag gashan waa inaad wixii fahantaa marka ugu horeysa taasa muhiim ah inaad wixii fahantid step by step u fahantid oo aad baadhid oo waqti gelisid oo aadan ku bilaabin lacag fara badan wax yar baa la geliyaa basiit ah oo lagu eega oo lagu tijaabiyaa mesela wax aan khasaaro ahayn hadhow markaad wixii baratid oo aad macallin ku noqotid hadhow aad gashan lacagtaadu baanta way jiraan rag fara badan oo ajnabi ah oo lacago culus geliya laakiin raggaasu lacaga ay ka marmi karaan bigeliyaan inaga wax weeye mushkiladii wixii aynu haysano dhabanu dalaq gelinina taasna khatarkeeda leedahay marka waa idin ka digaya taa iska ilaaliya insha Allah taala arrin kale ayaa jirta iyana muhiim ah marka ay dadku boodka la tacaamulayaan oo ay xitaa ay fahmaan qaabka uu shaqeeyo wax weeye dhinaca xalaasha xaraantan inay eegaan weeye sababtoo ah bootyadan lacagta lagu bixiyo ee dadka kirada laga qaato sanadkiiba qaarkood wax weeye iyaga kugu shaqeynaya laakiin coinka aad doonaysid ma aha iyaga kugu dooranaya coinka ay doonayaan waa hadaadan adigu dooran coinkii aad ku shaqeyn lahayd ee xalaasha ah dad badan kasta boodkii way furanayaan hadhowto lacag bay ku shabeeyaan waxay oranayaan company-ga boodka iskale noogu shaqee company-gaas wax kastuu soo dhexgelinaya xalaal xaraan they don't care ma garanayaan waxa way soo dhexgelinayaanay marka adigii haddii aad ka faa'iidaysid مثلا oo lacag ka soo gasho dee waa mushkiladaas sababtoo ah coinka ay kugu shaqeeyeen garma maysid waxa uu ah marka taasna waa muhiim weeye qofku inuu fahmo coinkan uu ku shaqeynayo waa maxay ma coin xalaal mise waa coin xaraan ah taas waa point very important ah oo muhiim ah dhawaan insha Allah waa ku soo dari doonaa koorsooyinka Rajo Academy ee boodka iyo systemkiisa dhan ku soo dari doonaa boodku faa'iidana waa leeyahay khasarana waa leeyahay ma jiro boot 24 saac ku siinaya faa'iidooyin faa'iidana waa leeyahay khasarana waa leeyahay marka insha Allah la socdata